بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. waxaan rabaa maanta oo axada bishuna ay tahay 23 bishii 11aad 2025 waxaan rabaa inaan la wadaago waalidiinta Soomaaliyeed oo qurbaha joogta khaasatan kuwa jooga Soomaaliya. waan ognahay boqolkiiba 90 caruurta dhalinyarada Soomaalida baa lagu shaqaystaa taa caadi nagama saara waa ognahay laakiin Allah subhanahu wa ta'ala baa inoo wax xafida ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in caruurta ilaahay noo xafido. intaa waxa ay dheeroon dhabta u soo degaya waxa weeye waxaa jirta habab badan oo waalidiinta beryihii dambe lagu khayaameeyo. awal haddii wiilkaaga ama gabadhaadu way bixi jirtay way soo noqon jirtay dhar cusub bay qaadan jirtay dhaqaalixin jirtay wixii waa la soo dhaafay hadda wiilkaaga iyo gabadhaadu ama caruurtaadu guriga kama baxanba guriga joogaanba markii lagu weydiiyo caruurtaada waxa oranaysaa guriga iska joogaan guriga way iska joogaane idinkana ay lama joogaan qolkooda ku jiraan. sawaabtu waxa weeye su'aashu waxa weeye maxay ka qabtaan ku qolalka oo idinkay la joogi weyn sababtii saan waay waxaa jira abab badan oo lagu dadka lagu shaqo geliyo oo iyagoo gurigooda jooga shaqaynayaba marka wiilkaaga iyo gabadhaada mobilkooda fiiri haddii ababkaas ay haystaan waxba ha ku xanaaqin waxna ha boodboodin fiiri maxay tahay dheh ha ku baro adiga waalida waxa iska dhigtaa qof furfuran la soo dig halkaa koogo xaaladda ababkana meeshaan kuu saaraya markay dhalinyaradu guriga kuu joogto ay kula joogaan waa inay in la wada joogaan waa inaa guriga wada joogta waa inaa fadhiga wada fadhiyaan waa inaa sheekaysataan waa inaa maaha inuu qolka ku xiran yahay adna xaga ku xiran tahay uu joogaa mase joogo hawl shaqo ku jira especially hadda ishu waxay saaran tahay wiilashii hawlahooda waa iska soo yaraanayaan gabdhaha bay saaran tahay gabdhaha si fiican baa loogu shaqaystaa beryahan marka ha la ogaado. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ababkiina kor baa inoo soo saaray.